الله والله قاضي هذا بدانتي رجيس ساي حليبا xogaa yada u yar laabto waa iska dhafray xilada ma iska gaaray nin la yiraahdo cawl official halkan ka salaamayo banqadkooda leena xukun ninkii si keeda Hargeysa u soo socdaa ama uu leenta qorqoriya marka ana adigu madax waayo meesha waa meeshiisi cidna waxa waay waa iska caadi yiri marka kadib soo dhaweyntiisii arkay runtii aad ugu farxay runtii laakiin wax yar baan isweydiyo ah maxay tahay sidaan si kale loo soo dhaweeyay aaway dadka tirada badnaa marka isaga ayaaba noo sheegay sababta ay dad badan u soo dhaweey waayeen aniga wallahi waan calool hadlayaa waa kolkoliso kibriso marna ku qaadisa waa Hargeysa lagu sheegay dhanjida waa kolkoliso kibriso ku qaadisa waa haddaad afaaraheeda gasho nin bad cabaysa haddaad laakiin aad wanaag ka tabcato wala wanaajinaya bum 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 assalaamu calaykum saaxiibayaal meel kasta joogtaan si kasta maqalkayga idin soo gaaray balka diga daawanaysaan waa channelka Shaacir Sheekay waan laakiin Shaacir Sheekay ku soo dhawaada barnaamijka dalaynta bulshada kuga hay وأنت صاحبي أنت برنامجك وقلنا فضلا سبسكرايب صار channelك سو كله لايك لدعم مقال كان سو قال صاحبي بدر وهيك صاحبي مقالة هرجيسة عاصمة الجمهورية بركيسن سوماليلاند waxaa lagu soo dhaweeyay kinsiki oo iskan youtuber oo baan hadda ka sheego ba waxaan rabaa inaan arrin yar ka hadlo arrintaas oo ku saabsan soo dhaweyntiisa dad badan baa laga yaabaa inay isweydiinayaan warninkoodaga maxay tahay soo dhaweyntii maxaa dhacay aw hablihii quruxda badnaayo ما soo dhaweyntii looma dhamacamal isweydiiyaan marka intii aan kilibada soo dhaweyntii iyo muuqaalkii aan daawanayay arrin baan kala dhaxbaxay marka dad badan baa sidoo kale arrinta isweydiinaya moogta markii aan arkay soo dhaweyntii waxbaan isweydiiyay waxaan si dad badan baa arrinta isweydiin karay adna waa arrintu waa fahamtay bal dadka ka dabagay qaarkood intii aan arrintaas xogteeda helay hadaba inta aan arrintaas u gadagalay arrintan aan ka hadlo Somaliland bariyihii u dambeeyay ama magaalada Hargeysa baan iraahdo Somaliland aan dhihin Hargeysa caasimada aan iraahdo عاصمة دورت مركور وروبستي وحلا ما شاء الله تذكر إنك حلقة كسو آذا نسيب لبا حقيقة إنك حلقة كسو آذا هرجيسي ماذا وأنا سجبا برواقو يبشبش يعانو يقوي ماذا وهي ولي أنا هدي سفر يسوع ميل عادي سود ماشي مركز عادي سود هنقطة ميل أمريكا تشيلال أهاي ولا ميل تشيلال اللي مسوي هيك كرمكت ميل برواقة يساس وده سنتها حلقة كسي برواقة سنتها لكن كمسي جرت دي مركز رحمة دي إله أي هرتو شنبروه أي شغليهين عانوهم ملك استيالان أدي وادري بكرتا أدي أنا صلابتو هرجيزة وحي عن كوهد أما اللي جوي قاني إن قفك سامين تبلشة كل اللي كعو أو أساس لو سو لو يكرر وقاته الله والله قاضي حليبا xogaa yada u yar laabto waa iska dhafray xilada ma iska gaaray nin la yiraahdo cawl official halkan ka salaamayo banqadkooda leena xukun ninkii si keeda Hargeysa u soo socdaa ama uu leenta qorqoriya marka ana adigu madax waayo meesha waa meeshiisi cidna waxa waay waa iska caadi yiri marka kadib soo dhaweyntiisii arkay runtii aad ugu farxay runtii waana jeclahay qof kasto Soomaaliyeed dig Soomaaliya ku jirta inuu walaalkiisa ku soo dhaweeyo laakiin wax yar baan isweydiyo ah maxay tahay sidaan si kale loo soo dhaweeyay aaway dadka tirada badnaa marka isaga ayaaba noo sheegay sababta ay dad badan u soo dhaweey waayeen aniga wallahi waan calool hadlayaa halkan horta waa gurigeygii waxaan dareemayaa gurigeygii inaan imaaday mar iyo mar kale dhammaan waxaan u mahad celinayaa dhalinyarada soo dhaweynta ka soo qayb gashay youtuberada saxafiyiinta ma sha Allah waxaan kaloo aan u mahad celinayaa oo aan ka xumahay dadkii ballantu waxay ahayd markii hore inaan 10 meelaha imaado laakiin waxa dhacay khalkhal flightka wax ku dhacay in la soo hormariyay aniga xitaa ma filayn 6 subaxnimo halkan aan joogay basaakay dhalinyarada ayagana waan ugu mahad celinayaa filay inaan 10 ka imaanayo waa ka xumahay runtii qaladkaas sida aragtaanba ma ahay qalad Hargeysa ama ka dhacay sababtoo aniga dadka igu xiran 160 iyo waraa 6,000 in subscribe ka aan iska xirtay oo ayaantan isleeyahay YouTube-kii waa baash isha isla garfinaya marka wixii geerka waa iska xirtay waxaan sii war waa baashu ku soo gaarin iska laawacay marka la feeyo boqoy xogaa subscribe ku xirtay adiga insha Allah markaan 146 waa 6 kuma gaarin 146 amal meelaha samarayna markaan konton ka gal insha Allah ma furi doona kadibna dana sadaqadeena iska xira doona laakiin
ninka odaga waxaa ku dhacday flightkii xilliga ugu talagalay in meesha lagu soo dhaweeyo oo ahayd 2 saac ayuu wuxuu ku soo aaday xilli 12 oo kale waana dareemi kartaa 12 qof markuu soo iska tukado kale qof shaqo iska aada iyo qof markaasi waxa iska noqonaysaa hurdada isaga laabto haduu shaqo markaasi heenin marka qofkii marka xitaa islahay 2 saac buu ninka imaan doona xusli iska sii indhagudud marka dadkii hurdada la tagtaba gibigood meeshii 2 saac laga rabay buu 12 ku soo aaday marka waan ka xumahay qaladkaasna waxa ah qalad xagga flight ka dhacay laakiin waxaad ogaatiin Hargeysa inaysan ahayn meel aan qofna gobonimo ku helin qofna lagu buusin oo ay tahay meel hadii la yiraahdo waa lagu kaca hadaa adigu marka waxba ka kasban meel hadii la yiraahdo waa lagu kacayo oo kor lagu gaarsiinayo waa kolkoliso kibriso marna ku kaadiso Hargeysa lagu soo dhaw waa kolkoliso kibriso ku kaadiso hadaad afaarihada gasho nin bad cabaysa hadaad laakiin aad wanaag ka tabcato wala wanaajinaya Hargeysa runtii aan ahaan oo meel aan aad u jeclahay anigoo macnaha aysan iga ahayn ama dad laakiin xaqiiqatan aan ka hadlo oo meel aan aad u jeclahay waa meel adiga dacam soo koobi karo abwaaniin ba amaantay heesi inta loo qaadi karo waa loo qaaday laakiin Hargeysa waa Hargeysa hooyigii murtida iyo hooyadii abwaanka marka hore bariidiyo waka hambal iyo salaam baan hadiyad kaaga dhigaye waa hooda badante Hargeysa nabadba waa hooda badante Hargeysa nabad codaan lahayn ma haysi laamaanta orani reer Hargeysa waa idin wata wayahan imaamadiina lama haysan karo qofkii haysto iska dhig ma haysan karo imaamadiina dabcan dadka inta badan waxa iskaga jiraan oo kale dadka YouTubers ama fananaha dad waxa jira aan jeclayna kale in la soo dhaweeyo soo meel lagu soo dhaweeyo ani xitaa dad shaqadii ka hadladaan meel tagayo kale macnaha iska jeclayna iska galo oo joog degan waxiga tartiib ha dad wax iska jecel yihiin in loo kaco la soo dhaweeyo marka qof walba waa soo jecel yahay laakiin waxa ay tahay Hargeysa qofkii jecel in la soo dhaweeyo ma karato laakiin ciladaas farsamo dhacday dadkana waxaan u sheegayaa Hargeysa waa Hargeysa waana waa muhiim in meesha wanaagsan wax laga eego negative kala iska ilaaliyo dabcan isku dig baynu nahay isku dhaqan baan nahay hadii dhibaato ama siyaasad waxa jirto dadka waxaas dhan ka saari karo waa dhalinyarta xilligan la joogo kuwa laga rabo inay wax bedelaan kuwa laga rabo inay dhibkii dhacay dhayaan kuwa laga rabo inay wax kala noqdaan waxaan leeyahay waa dhalinyaraduna siyaasad iyo qabiil waxa way ka madax banaan yihiin waa dad isku dhiigo isku dhacaana waa dad garakara xilliga ay waqtigaasi ku jiraan wixii awooyaal iyo abayaal sameeyeen waa gooni inkastoo wixii fiican laga dayday way fiican tahay wixii xunna laga haray fiican tahay haddana aan leeyahay leeyahay Soomaaliyeed oo ninka walaalka ah oo ogolaa libintiisa si adi taadan lagu ogolaa laakiin hadii aadan qof libintiisa u ogolayn anna libintaada waa lagu diidaya marka laba dibina meesha ay ku dagaalanto hoos baa ku dhamaadaan aad uma sadaqashada muuqaalka shaashka la saayo muuqaalka